Allah ha u naxariistay 2 qof ayaa ku geeriyooday 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay magaalada Burco gaar ahaan agagaarka Hotel City Plaza. Shilkan gaari ayaa waxaa sababay 2 gaari oo kala ahaa booyad iyo tigis ku dhacay. Dhaawac iyo meydka ayaa la keenay cisbitaalka guud ee magaalada Burco iyadoona xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo dadkii ku dhaawacmay shilkaasi. Agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Maxamed Cabdi Faarax ayaa ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay shilkani. Shil baa ka dhacay magaalada gudaheeda. Waxa ku dhintay 2 qof. Dhaawacuna waxa weeyaan 4, 2 kamid ah xaaladooda culustay. Ilaahay caafiyo waxa weeyaan dhaawaca ku dhintay Allah u naxariisto. Dadkii ehelada ka baxayna samiriimana ka siiyo. Geerina xadin la dhaawac naxdin loo soo noqonaya. Marka waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto ku dhintay. Kuwa dhaawacana waxa weeyaan caafimaad sariic ah siiyo. darawaliinta iyo dadka baabuurta wadana inay taxadar sameeyaan oo bini'aadankan ay sidaan ahmiyadiisa ay ogaadaan oo maartay ay ka taxadaraan baabuurta maartay loo kaxaynayo qeyr mas'uulnimada leh oo maartay dadka sharciga la eego qof aan sharci haysan baabuurta aanu kaxaynin ayaan soo jeedinaha waxa yar tigaha loo yaqaaniyo gaari booyada baa isgalay taasas dhawaan sababta goobta ka dhacay Plaza isha Burco area 2 shil oo kala duwan ayaa shalay maanta ka dhacay magaalada Burco. Shilalkan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kala duwan. Guud ahaan khasaaraha ka dhashay labadaasi shil ee ka dhacay shalay maanta magaalada Burco ayaa ahaa 5 qof oo geeriyooday iyo 9 qof oo dhaawaca. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.